ama dagaal ama cid lagu duulay ma aha taasna diyaar uma nihin isku wada imaado la isku col furnaado wax la yiraahdo tafarruq ma jiro sida banaanba khilaaf ma jecli guddi kastoo la doortay diyaaraan waa inaan la shaqeyno laakiin waxaan u dulqaadan karin tafaraaruqa Somali community waxay muhiim ku tahay in maaragtay hal meel ay wada qaadato tafarruq iyo Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa thana'u lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd walaalayaal anaga yeernay waxaan ku yeernay labadan biri magaalada wixii ka socda hadda buuqa weyn baa ka socday nin walba wala socda umaleena cid wax warkayna miya jira hadda labadan biri wixii ka socda hadda nin walba waa ka warhayaan umaleena everybody knows about it true or false marka isaas tahay anagana insha Allah dad odayaal baa leeyahay ficnaan iyo waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno iyo xasilaad marka isaas tahay waxaan u aragnay macnaha fadhi inaan yeelano oo odaynimo dadkii buuqa macnaha oo qayrada meesha ay ka jirto aan aslaax samayno ilaahay nabigiisa wuxuu yiri wax oo cibaadada ay sameynaysa wax ka weyn miya jira ma in sheega nabiga la dhaha nabiga dadka u sheega salaada iyo zakada iyo sadaqada wax ka weyn ma in sheega yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas la yiri balaqdi ya naam ya rasuulullah tell us markaas wuxuu yiri nabiga islaahu bayna naas darajada kor buu markiiba u geynaya insha Allah ta'ala ilaahi waj'al yahay nin oo macnaha khilaaf meel weyn ay khilaaf ay ka jirto dadka li sukeenaya ilaahi waj'al yahay marka ikhwaani waxaan arkay fadhi noocan inaan sameeyno fadhi noocan markaan sameeyno waa ogtiin maalin weeyo xaga suxufi fadhigi dadkii markay buuq sameeyeen oo meesha isku dagaalay wax dhow oo macnaha oo wax weyn oo isku soo dhacay watii aniga meesha gegsan waayo iskaga baxay markay saas tahay waxaa la yidhi nin baa meesha lagu qaaday kadib buuqii maalintii bilaabmay ilaa maanta wixii waa sii ziyaadayaan anigana hawshayda iska qabtay wallahi waa gadaal ma fikirin markay saas tahay waxaan arkay wixii oo si meel xun u socdo waxaan dhahay balaan sameeyno insha Allah ta'ala si aan fadhi aan sameyn lahayn fadhigan horta waa nabad iyo khayr waxaan rabnaa dadkiina la sukeeno dadkii qaar waa dad badan waa maqayin dadkii oo maqan waxaan rabnaa insha Allah markay yimaadaan hadana fadhigan sameynayna insha Allah soo wixii lama sugo intay ka sii halawto lama sugo waxaan rabnaa insha Allah ta'ala as the chairman of Somali community kan hadda odayaasha ay meesha ku qaadeen hadduu soo noqdo ofiiska xagga inaan isu imaadno oon xasilaad aan samayno waay hadda waxaan rabnaa insha Allah 9 biri kadib sanadka markay gidoonto insha Allah kan gaalada 9 biri kadib inaan galno full election oo qolo walba ay leedahay qolo walba waxaan ka rabnaa representative macnaha qabiil walba waa is ognahay mogtani walba gare dogoodiga ajuuraanka qabiil walba inaan isu keeno macnaha dadkii ay isu yimaadaan oo Somali community ay hal noqoto anigana meesha xilkii oo dadkii shalay macnaha buuqa sameeyeen waxaan leenahay hadda buuq ma aslaax soo marabtiin ha ninkaana maxaa ka qabtiin abdo baxaaji hadda la qaadana si wanaagsan lagu qaado مثال يعني oo ninkii kala soo gali doon aniga ma barabiba waqtigeeyo waa soo qaatay laakiin marabi Soomaali inay Maxamed Xuuri ka baxay meeshii waa diba ka dhacay marka walaalayaalo hadalka waa noocaas waxaan rabnaa xasilaad iyo ficnaan iyo walaalnimo Somali community Mombasa hal aan ka dhigno ceeb iyo lama arkaan iyo reer hebel kama rabna meeshan insha Allah dadkii dhamaala ay noqdaan hal Soomaali hal noqoto culumadii iyo caamadii iyo dadkii oo dhan iyo qabiil walba Somali community waa hal qabiil leedahay maaha waa dad dhan isu leeyihiin waay marka insha Allah markay saas tahay waxaan rabnaa biidn illaahi wixii idinka aad maawniya qabteen haddana qaadadina waa diyaar
muddo badan inaan ka qaadana ma rabno insha Allah wixii fikradda aan isku dardarsano insha Allah billahi tawfiq jazakumullah khair. Kiswahili nafikiri watu wote wamesikia. Kuna mtu ataka Kiswahili? Okay. Marhaba. Kwa majina naitwa Muhammad Huri Ibrahim, Chairman Somali Community Mombasa. Kwa kweli nimeita mkutano huu baada ya kuwa tulikuwa na kikao chetu katika Suhufi. Wazee walipokaa wakachukua mtu mmoja anaitwa Abdo. Haikukubalika. Watu wote wako kelele, fujo kila mahali, watu mambo si sawa. Sasa nikaona kama badala ya kunyamaza niite watu pamoja, na saizi tunajua tuko katika wakati wa likizo. Wazee wote karibu 70% hawako. Kwa hiyo ndio nikaona tuite mkutano ili tupeane siku 90 kuwa tunaenda kufanya election. Na kabla election mimi nitaendelea kushikilia kiti ya Somali Community kama chairman, na insha Allah taala siku 90 zikimalizika twende kwa debe, atakaye kuchukuliwa achukuliwe na haki na ukweli. Hiyo ndio point ya Kiswahili insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Ali Ismaaciil Cadow. Waxaan ka mid ahay ganacsatada Mombasa. Arintan waa la socda waxay ka jiray, waa la socday muhiim ahaan hadaan soo gaabiyo. maalintii la soo dooranay German-ka cusub hadii la soo doortay waa noo yeeray. waliba markii noo yeeray irid markii la galay kaarar la soo sameystay sidii weedin amal dad selective oo la soo xulay oo kaarar la soo siiyay waa meesh lagu galay. aniga musay kale aan qaraabanahay oo 8 jira waxaan la yiri kaar ma wataan meesh ma gali kartaan. waan yaabnay wax system Somali Community wax laga hadlayo kaar lagu galay horta runtii waa la qabsan waynay. waan isku wareernay buuqa ka dhashay markii German-kii joogay marka meesha ku qaylinay wuxuu yiri nimay walaalayaal oo Soomaalida marwalba nidaamkooda waxba ka qaldanay iska dulqaata soo galay inuu yiri anagoo host ku deegaanay waan soo celiyay sida meesha soo galnay. meesha markaan soo fadhiisanay waxa fadhiyaba dad oo banaanka soo heshiyay systemka cidi dooran lahayd iyo dadka la dooranay waaba qoran yihiin ba diyaar already waa la diyaariyay. aniga waxa lagu daray 10 qof oo German soo dooranay maadaama markaas Apollo maqnaa ciidan ka dhashay ahaan waxa la yiraahdaa adiga soo istaag 10 qof oo dad soo dooranayaan ku darsan waa lagu daray qol 7 floor koran fuulay oo qol yar oo jiifa meesha lagu dooranayo waa qol yar oo jiifa way 10 qof oo yaasho fadhiyaan magaciisa la soo qoray alla 4 qof oo candidate la soo qoray. markii anagoo meesha ku murmeen waxaan bari nooga dhiga dadka badan dadka buuqa ka dhalanay meesha balmayo waradan laba bari ka dhiga maya waxa la maanta la kala lamaana maanta illa waa in maanta la doorto adana maanta la soo tangaasiyo waxa la maanta la sheego oo German-ka qofka Soomaali noqon lahaa. arintii murmay saas u taagay waana la mujuuray dadkii waa la soo doortay waxa la yiraahdaa Abduu Bahaji baa dadkii kuuraha u batay asaga la soo tangaasiyay. isla same time waxa la diyaariyay adana 10 qof kale oo chairman secretary iyo vice chairman iyo finance wixii dhan la dood diyaariyay waa la soo degnay. meesha markaan imaanay waxa la yiraahdaa arintaas dhacday ma hadli kartaan dadkii oo buuqsan oo group kale soo darsameen oo la qaylinayo waxa la yiraahdaa wax hadli kar male. arinta waa dhamaatay saasa lagu maray. aniga from that day oo arintaas dhacday up to date waxaan hay communication dambe aan hay malaha. waxaan ku arkaa social media in waxaas la qabsaday hebel la kulmay waxaas la diyaariyay waxaas la shirar noocaas arkay. markii dambe waxa la furay forum oo Somali Community Mombasa waan u soo daray xoogaa dadka su'aalaha soo jeediyeen arintaasi wax u dhaceen. wixii markii dadka isu fahmi waayeen waaba la xiriba waxa la geliyay blog in admin qof aan ahayn arintan ka hadli karin. marka day wax fiican ahaayeen ma la xiri lahayn. sheekho Soomaali waxa la yiri wuxuu sheegay wuxuu yiri baashan heelada wuxuu yiri waa ka shakisan oo already wuxuu yiri automatically heelada la sheegay wuxuu yiri waa ka shakisanaya. waxaan ugu shakisan wuxuu maxaa habeenka bes loo ciyaaraa maalin lama ciyaaray maxaa habeenka bes loo ciyaaraa
intaas baan ka dhigay wuxuu yiri shakan ka qabowde waxa diiba la xiray hadii aad ogaatay in forumka qofka ideagiis ama fikrad ka dhiiban karin oo la xiray dadka laga xiray waxay ku sidaysaa in waxay wax ka qaldan yihiin marka walaalayaalow horta qabaayilka waxa la yiraahdo iyo gruubaysti Soomaalida wax kuma sameyn karaan wadan dhan aan ku soo burburinay dawlad dhan lagu hayn lagu maamuli waayay hadda wadanka dhan aan ku burburinay magac qabiileed waxaan rabnaa magaca system group ama qabiil in la adeegsado inaan ka soo noqono Somali community oo wixii oo dadka dhan ku siman yihiin baaran insha Allah diyaar u nahay jamankeena waa ixtiraafsanahay arintii systemka noo wado ilaa waqti laga gaaray saddex bilood waxaan rabnaa insha Allah ta'ala communication aan sameeyno all means wixii wada xiriira wixii fikrada diyaar baano insha Allah ta'ala waan u baxay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal horta saad maqlaysaanba anigu waxaan leeyahay Cabdiraxiim Ilgaari ay Musa saad maqlaysaanba maana dhawata meesha waxa lagu sameeyay selection doorasho ma dhikri laakiin selection dad oo madax kor laga soo xisaabay ayaa la yiri oo predetermined ana saa maqlay dad la sii ogaayo lis la sii diyaari dad la wada istaaji xoog amal buuqa ka dhacana ma joogin runtii chairmanka sida normalka waxa way chairmanka muddada markuu haayo si chairmanka ka horeeyay Apollo markuu chairmanka uu ahaa kadib markuu xilka wareejiyay chairmankan uu ku wareejiyay chairmankan markuu wareejiyo transition normally waa in chairmanka lagu wareejiyo arrinta maadaama uu buuq ka dhacday chairmanka ma ku qancin boqolkiiba kuma qancin dad badan oo Soomaali oo quruf la jaro yaani oo wali aan qancin marka arrinta hadii dib loo hagaajiyo run ahaantina sida leadershipka lagu wada qanacsano marka walaalayaal arrintan hadda uu chairman ka dhawaajiyay oo la isku imaado arrintan la toosiyo inta days wax loo hagaajiyo odayaasha qaar wax doortamay odayaal kale waxa jira oo wali ayagana aan wada qancin isku wada imaado la isku col furnaado wax la yiraahdo tafarruq ma jiro tafarruq ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jeclo marka waxaan rabnaa inaan isku wada imaadno hal meel oo hal tilaabo isla wada qaadno meesha wax naga qaldameena aan saxno intaas horta uu chairmanku u imaaday intaas baan ii sheegay insha Allah ta'ala arinta iska hagaajino wax disunity ma jiro telefoon badan soo dhacayo leey maxaa kalgoyn ma jirto hal meel wax u wadnaa saan ku heshiin leyno ma insha Allah ta'ala ayaan socon ugu hadlaynaa barakallahu fiikum assalamu alaykum السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وكما سنتين أغيارتا وعسنتي شركان وشرفت مضن marka sida marka waxaan jeedaa maaragtay xogo tafaaruqi ayaamaan ka socday social media qaybta Somali community in arrimaheeda ay tahay maaragtay wax looga rabo in looga go'aansado ama looga arinsado marka saa horta loo socdaa waxaan maleynaa Somali community si ay u hesho maaragtay urur guddi ama gudoomiye cusub muddo dheer ay ku soo socotay maaragtay 2 sano qariib intaas waxaan ka imid dadkii technical committee oo arrimahaas ku howlanaa u dhabar jabay ama wax isku waday marka hadii ay timid maaragtay guddigii darra maalin hore ama waqtigii hore lagu sameeyay suxufi lagu doortay ama lagu aasaasay in maaragtay xogo laga biyadiiday ama dhaliilo ay ka yimaadeen waa fiican tahay in la iskaga yimaado maxaa yeelay wax walba waxa la rabaa maaragtay wada hadal iyo ismaqal iyo in ay ku wada dhamaadaan ayagana guddi waaye hadda dad odayaal madax ka ah haddana waa ujeedaa dhalinyaradii sidii jeensi ahaan marka hadda inaan dhalinyaro u badan tahay shirkadda oo ka gacdoodsan ama ka biidiidsan guddiga hadda magacaaban marka haddii liira arrimaha la isu keeno oo maaragtay hal meel Somali community waxay muhiim ku tahay in maaragtay hal meel ay wada qaadato tafaaruq iyo guddi in guddi koowaad guddi labaad guddi saddexaad inaan waxa lagu kala qaybsan waa dhib weeye marka haddii shirkii intaas oo socon 2 sano la soo waday technical committee ama waxa soo waday wixii xogo waxa ka yimid maaragtay dhaliila marka waxaan idin ka baryaa maaragtay haddii hadda la rabo in dib loo igleelo guddi ama guddi la yiraaha in technical committee la sameeyo oo dad macquul ah oo qayb walba ka socda la isku sameeyo si dadkii dad wada mideen kara Soomaaliya si isku keen waa adag tahay dib way leedahay laakiin in la helo dad matali karo maaragtay at least ala wada qanci kara in la wada helo
waa idinku waaninaya maxaa yeelay in la helo guddi farsamo oo ka soo baaraandega gudoomiyaha wuxuu yidhi amaleynaa 3 bilood ayaan siinayna qolay 3 bilood waa ramadaan kadib waaye marka in la helo laakiin 3 bilood gudahood guddi farsamo oo waxaas dhan ka soo baaraandega oo qaybaha dhan dadka inta maqan iyo odayaashii wax walbaba habkii la iskugu keeni lahaa ku dadaala ayna noqonin tii hore guddiga oo kale 3 sano inaan ama 2 sano ku soo qaadano dhiskeeda iyo waxay badan mar labaad hadan intaan oo kale ay ku noqotaan Soomaali waxay wax buu qabsan laanahay ama tafaaruq u yimaado hatta election markuu yimaado aan wax u dooran laanahay nin walbaba uu istaagay dhibka waxa yaalo kan waay marka waxaan ku boorinayaa dhalinyarada hadda soo xil qaatay ee ka bidisan guddiga kale in ala sameeyaan technical committee oo arrimahaas isku u dabar adeega oo ka soo miriyay dhaliya si Soomaali ay mid u noqon lahayd hal gudoomiye ama ay u noqon lahayd urur isku midaysan oo hal wajaha waxa ku diinay hada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalyaal magacayga maxamed xasan waaye guddiga reer Mombasa aan kamid ahay dhinaca qaybta beec mushtarka walaalyaal horto waxa maanta u fadhino waa midnimada Somali community in Mombasa wax khilaaf oo meesha laga wado ama dagaal ama cid lagu duulay ma aha taasna diyaar uma nihin maxaa yeelay annaka dad muslim baan Soomaalida laga soo tago muslim ma sidiisaba khilaaf uma fiicno dhaxdiisa ayda quraanka Allah subhanahu wa ta'ala markuu arrimahaas ka hadlayay oo amruhum shura baynahum arinta muslimiinta arinta annaka nuqusayso inta badan marka ka hadlayaan waa in shura laga dhigo wada hadal ba wax lagu qabsadaa xudud iyo qabiil iyo awood kale iyo waxa lama sheegto nin ka weyn ma jirto marka walaalayaal fadhi khayr qabo Allah ka dhigo anaga waxaan u jeedno waa midnimada Somali coast Somali unity taasana rabnaa oo anficayso in terms of our economical field political field qaab kasta afarta geesna anaga anficayso ayaan u baahanahay ma aan hal gudi oo meel isku xiran Somali branch ma ahan taasna maxay ku iman kartaa in la wada tashado maalin cad la wada tashado waqti la isku yeelo la ballamo nin kasta ninkii xilka rabaa soo istaago asoo qabiil ka soconin yani openly election kana sidiisa qayb badan buu ku dhacaa waa aragteen baarlamaanka mar dab istaag buu ku dhacaa mar gacan taag buu ku dhacaa mar sanduuqa ballot box secret ku dhacaa marka waxyaalo badan buu dhacaa laakiin barnaamijkaas waa in laga soo shaqeeyo oo guddi ka soo shaqeeyo madax bannaan oo culimo ku jiro duqay ku jiro dhalinyaro ku jiro beec mushtar ku jiraan haween ku jiraan meelaha qaar dhalinyaro oo ay kana youth ka socdaan ku jiraan branchkaas oo dhan baa loo baahan yahay oo wali loo sii baahan yahay dadka madaxda hadda kursiga ku fadhiyaan in ay kana la tashado qaybtooda ka qaataan taas baa unity iyo wada socod lagu heli karaa maxaa yeelay hadda aniga ni hortaagan naftigay kursi siyaasad u baahana kursigaas si aan ku heli karo mal hadii ciideed anaan ka imaado dib unity leen seel weeli marka waa in anaka naftigeena unity ka shaqeeyno unitygaas wax ku noqon karnaa waxna ku heli karnaa waxna ku goosan karnaa marka walaalayaal dadkii fadhigan soo qaabiyay khayr Allah hanisiyo barakallahu fiikum fadhigan waa fadhi loo baahnaa buuq iyo qayli iyo social media inta laga hadlay iyo nooma anficayso hadda ka hor aan madaxdeena oo baarlamaanka noo jiraan wax maalin ma la hadlay war maxaan dhahay walaalayaal oo sidin Somali community cost ba u tishatiin inaga madax baarlamaanka jirtiin maxay dhaheen dhibkan haysta Somali community hal cilad waa koox ba maanta la bilaabay koox kale ka soo garab hadlay macaarad waa imaan anaka meelan ku ogaagayna male marka guddi toosan oo nidaam leh oo madaxaas naftiga intii loo yeero maalin hool lagu qabto election transparent laga dhigo ninkii meeshaas lagu soo qaado cid duraba ka imaado we don't mind goos hadda madax dad baa fadhiya kursiga ku fadhiyaan madaxaan uma fadhiyaan laakiin asaaska hore laga yaabaa in bis lagu soo qaado laakiin hadda ugu dambeyn ninkaas community uu safgarina kursigaas ku fadhi waa community hadda ka tago ka sii tagi society uu tagi marka walaalayaal barakallahu fiikum fadhigan aan cid kula jihaadayna ma cid u joodna ma aha hal ogaado taas ahaan cadaato laakiin maxaa xogaho laga godoonsan yahay ama loo bogin doorashadii maalin hore dhacday waana macquul ruuxa khasab ma ahan Soomaali waxay jirtay qoolay qorqabad biyo kuma cabto ikoonad foos qoolay inta qabato cabbiya ma dhigi kartid marka walaalayaal taas way dhacday si u dhacdaba alxamdulillah wax laga soo tagay waa had intay bihi daadan waqtiga la gaarin aan tashano kursiga drawing board aan ku noqono aan wax la qabsan that is the agenda
كل chairman خير الله في جزاك الله dadkaas iyo gudigaas iyo dadka dhanba dadkeen hal maal xaflad hal qabto hal isku noqono nidaamyal badan ba jiraan oo Mombasa ka dhisan wax khilaaf maanta ama dagaal wadana ma jirto dadka hore dawladda soo dhiseen Xasan Xirsi iyo Ishaq Bashiir iyo dad badan baa la isku jiray hatta adiga oo kula jirin waxyaalo badan baa jiray maalintii la raadinayay wasiirka ninkan wasiir baa u rabnay laakiin tii rabbi baa noqonimo all in all hadda waan haysanaa alxamdulilah laakiin midda jirto walaalayaal saan nii sheegnay waaye wax qabad iyo hor socod haddaan rabno unity iyo walaalnimo lagu heli taas baan hadda kullee lagu daarno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you الله وبركاته وجزاكم الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله ما دسكله كلن كان خير كبان سكين كيني كلن كان سي شيء دتكي وري وكلن لوجو باخايو سومالدا إن ميدوان دتك يعني توشد خبو إن لدقيستو odayaasha ay dhageystaan loo yeero maaragtay la isugu yimaado oo hal meel aan wax wada wadno runaantii aniga reer Mombasa ahay muddo 30 sano ku dhawaadna waa deganahay shaqana waa ku haystaa ganacsina waa ku haysanaa alxamdulilah ciyaalna waa noo degan yihiin ciyaalkan ku dhalnay guur ah haddaan soo koobo warkayga ani ahaan waxaan Somali community u soo qabtay howlo badan oo ka mid ah youth dhalinyarada Somali community magacaas ma jiri jirin markii aan isticmaalay aniga Somali community waa raadin jiray taamku waree Governor Joho soo dooranay ka hor 2 years before ayaa Somali community la undey before that waa shaqeyn jiray youth ka isku keenay jirnay sports kan yani kaga shaqeyn jirnay football tournaments markii fahmaysa waa isku xirnaa jirnay Soomaalideena dhalinyaradii xilligaas aan isla shaqeyn jirnay hadda odayaal ay noqdeen ilaa hadda waxaan taaganahay midnimada Soomaaliya cid aan aniga mucaarad ku ahayna ma jirto gudi walbo la soo doorto waa la shaqeynayna gudiga Apollo awuuray waa la shaqeynay meel fiican isla gaarsiinay alxamdulillah gudigii maartay chairman xuriye waa la soo shaqeeyay sida banaan khilaaf ma jecli gudi kasto la doortay diyaaraan waa inaan la shaqeyno laakiin waxaan u dulqaadan karin tafaraaruqa dadka waa in la qanciyaa la suuqeena meel yani hal meel loo wada socda midnimada aan ka shaqeyno tafaraaruqa iska dhaafno waxaan baaq u jeedinaa odayaasheena sharafta leh oo aan jeclahay oo inta sano isla soo shaqeynay iyo kuwa hadda joogo inay isku imaadaan oo ay dhahaan maxaa qaldan wixii qaldan la saxo bis intaas la rabnaa anaga oo aan mid naqar midnimada insha Allah taala السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخواني إن شاء الله هذا الكين تسان كحرنا إن شاء الله مستقيم كله نوتسيه عفي عفي ما الله نسيه عمري جينا ودير ودين لي الله نقدقه مستقيم كإله أنا قلت سي عندنا دعاء سواد في عنها وكنا غنيا إن شاء الله تعالى دينتا إيو إن شاء الله تعالى مستقبل كإله أنا قلت سيه بصومالي ده الله سكينه وهي حق الله نقليه إن شاء الله وإنتاس إيو جزاكم الله خير إن شاء الله وتنوشكركم أن يوتكوجا إن شاء الله إلهي عين بركة إنتاس